شدارة تهي فرح الله دنيا حياة داحل وهلا سودا ومداني حرني ماذا دبتي داي لما سوغي داردها مرايا سودا ومداني حرني ماذا دبتي داي لما سوغي داردها مرايا سودا ومداني وحسو دوية وحدة عاي مرورة تارتها دكاية سودا ومداني وحسو دوية وحدة عاي مرورة تارتها دكاية سودا ومداني ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto dalkaygii 12 sano kadib intii aan ka tagay waxaan hubaa wax badan isbedeleen laakiin haddana aad ugu faraxsanahay in arko dad fara badan oo aan garanayo oo ehel iyo qaraabo iyo shacabkii kale ee deegaanka ah waxaan sida uu sheegay gudoomiyaha xisbigu waad la socotaa barnaamijyada isbedelada la rabo in laga sameeyo deegaanka kuwaas sida u sii xoojin lahayn dadku nagala shaqeeyaan shacabku kaalintooda ka qaataan cid hadda maaragtay la guuleysatay cid laga guuleysatay toona ma jiraan waxaa meesha loo yimid inaan wixii naga xumaaday hagaajisano oo danta ummadda ka shaqeyno cadaalad sinaan horumar dimuqraadiyad iyo in maaragtay shacabkeenu akhlaaqyaadkii diinta iyo dhaqanka iyo wax walba naga xumaaday aan soo hagaajisano yaa u soconnaa waxaan rajeynayaa in shacabku taa nagu taageeri doonaan haddii la yidhaahdo waxaan u soconnaa in maaragtay sharcigu sarreeyo shaqeynta sharciga in la iscafiyo in la wada noolaado in maaragtay waxyaalihii khilaafaadka jira si nabadgelyo lagu xalliyo arinta kale ee ka dhacday magaalada Jijjiga maalintii dhaweeyay ee dadka nala nool lagu dhibaateeyay runtii aad baan uga xunahay ma garanaysaa waa mid maaragtay u baahan maaragtay in iyadoo la xalliyo arrin foolxuma in dadku nool oo maaragtay aad isku maaragtay daltihiin maadaama luqadooda ka duwantay dadka aad leyso oo dhibaatayso waa arrin maaragtay aad u xun manaha ficil ku kaceen shacabka deegaanka Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dhibaatooyinka soo jireenka ah ee shacabka laftigooda soo gaaray 27 sano u dambeysay iyo intii ka horeysay marka waxaan shacabka ugu baaqayaa istijiyaan noloshooda caadiga dib ugu soo laabtaan waxaan ballan qaadanaynaa in muddo kooban gudahood hay'adaha dawladda dhammaantood si fiican loo wada shaqeeyo